يعني ماشي وحواي ما عرفت قاعد كو سميس بيئة هواية وحيد ما عرفت اسمين بعض الأمر كان محل لا ما عرفت ماشي لقى قالنا وأنت ماشان وضل لقى قالوا أنت وضل لقى قالوا ماشي سدحاتنا ماشي لقى صبح الهواء وضل لقى قالوا وحيرنت هاي وحان ويدي dadka marka waxa loo xiray waxay dheer ma aragtay 2 saac adiga ugu dambeys waaye ma aragtay way xiranta sida fiirihi u jeednana geedka oo mashiinka meesha oo saaran waxa waaye mashiinada lacagta lagu qaato waaye marka waxay u badan tahay marka in lacag la iska rabo marka galaysid maadaama 2 saacna oo meesha dhan ay ku wada egtahay dadka inay soo baxaan tahayna waxa la sameeyay way xireenbo 30 daqiiqo ka hor ay xireen si qof oo u soo galin meesha maxaa la ma aragtay oonan hadhow u fiirinin ina ma aragtay baash wili furantahay in kale ma u gudbi kartid meesha labaad arkaysiin waxa waa meesha lacagta lagu dhiibay meesha lacagta lagu dhiibay waaye marka lacagta marka dhiibtid meeshaas kale ka sii gudbay si kale ma aragtay ugu sii gudbi kartid xaga ina imaadidna meeshaan ka horeyso meeshaan waa la xiray si ma aragtay qofka uusan u soo galin meesha oon ugu wareerin marka meesha horta meel qurux badan waaye waxaan isku dayaa inaan soo noqdo maalin kale anoo imaahay marka waqti kale oo fiican oo ma aragtay la soo gali karo marka labada meelba maxaa la ma aragtay waa la habeeyay sidoo kale calaamad meeshaas waxa ku dhagan ay la xariijiyay ay xariiqma lagu dhajiyay xagas ku yaala dad safiic warkaysiin intana waxa ku yaala baaskiil la xariijiyay taasoo micnaheedu tahay in ay ma aragtay baaskiil meesha la soo gali karin kan ilmaha lagu qaado iyo waxaas dhanna waa lagu soo gali karaa waa iska caadi kaas laakiin sida kale ma aragtay lagu soo gali karo ay adoo wadatin soo gali kartid baaskiil adoo wadatin soo gali kartid meeshaan waaye dadka intay ka baxayaan sugay meeshaan meesha laga soo baxay waa in waa laga soo bixi karaa ma ogiye bidixda waa laga soo bixi karaa meeshaan oo bidixda laakiin midigtan ma laga soo bixi karo ma laga gali karo macna in la soo baxo ma qofka inuu soo baxo ma ogiye marka waxa waaye meel aad horta loo kala habeeyay waa oo loo balangareeyay qofka baaskiil wata meeshaan oo baaskiilkiisa ka dhigaha ama kale meeshaan oo dhigana baaskiilada meeshaan yaalaan dhulkeena nagu aadiya waxaan u naqaynaa meesha kale oo kore si aan dadka kor ugu aragno laakiin meesha entrance-ga oo laga galo waa la xiray waxa loo xirayna waxay tahay la yiri ma aragtay waqtiga dhamaad meeshaan dhulka ku fadhida idinka ba qiyaasa meeshaas ilaa xaggaas oo dhirirsan yahay meesha kalena waxay dhirirsan tahay ilaa xagga intaan soo socdo dhan micnaheeda marka waxa waaye 2 goof camal Soomaalida goof ay taqaanaa 2 goof camal oo isku furan waay waxay sameeyeen meel la fadhiisto waxay sameeyeen meel lagu dheelo sida arkaysi meeshaas hadda Brunei lagu dheeloyaa table tennis la kubadda oo ma aragtay oo miiska lagu dheeloyaa xaggaas meesha coos ay ka sameeyeen geedo waa ka dhiseen cooska meel la fadhiisto leeyahay biyahaas arkaysiin waxaa la ii sheegay in webi camal uu yahay uu wasaq yahay oonan maxaa la ma aragtay loogu talagalin in lagu quweysto ama lagu dabaasho ma loogu talagalin marka laakiin meesha aad u qurxiyoosaa ma aragtay si qurux badan loo sameeyay ilaa xaggaasna woo jira dadkana waxay si heestaan cooskaaba ka badanba micna meesha cooska ku yaalo oo dadka ay fadhiyaan ee dadka isaga nastaan meesha ku badan maxaa la ma aragtay meeshaan way xiran tahay waxaan u maleynaa waxay ugu tala galeen dhismaha iyo alaabaha ma aragtay baawurta meesha laga geli lahaa inta laakiin anyway way xiran tahay meeshaan lama geli karo marka horta aad u dhiseen meeshaan way qurux badan tahay waa iska magaalada way ka baxsan tahay qof degan ma leh maxaa la ma aragtay waa meel lagu dabaasho oo maxaa la ma aragtay dadka u soo dalxiis tagaan oo iska qurux badan aan weeninkeedan idinka dareemi karaa macna ishaada intay qabato dhan oo ilaa cagaarkaas dambe geedahaas dambe meeshaas ku yaalo ilaa dhankaas kala hadana geedahaas kala qabanay ilaa dhankaas waxa waa ma aragtay meeshaan wada xiranta meesha waa buubuu yar oo qurxan coosa laga dhisay meel bacaada ka samaysan oo caramaayad caadiga ee taalo meel dadka teenda isaga dhisan oo iska fadhiistaan meel kuraasmo lagu nastay leeyihiin sidoo kalena waxaan arkaa geedii qashinka lagu riday xataa macna
qofka xataa duu cabitaan wato ama cabitaan meesha ka iibsado qashinka meesha ku ridi lahaa caagaas jaajaalaha arkaysiin alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu caagaas arkaysiin oo meelaha yaalo bacda madow ee ku jirto waa caagagii qashinka la isaga tuuri lahaa haddii maxaa lahaay ma aragtay oo qofka qashin gacantiisa ku haysto aniga kaamirada idinka dhex arkaysiin aan mar sheegi kari qaab quruxda badan u arkaysiin laakiin ahaan waxa uu arkayaa qaab qurux badan oo si fiican loo diyaariyay cagaarka ku badan yahay laami yar leh oo ma aragtay lagu socdo laamidaas yar gudaha ku dhex yaala waxaa loogu talagalay ma aragtay inaan lagu socdo bixitaanka dhankiisa dhankaas waaye laakiin qaybtii lagu baashaalayay oo quruxda badneed oo dadkan ay wada joogeen dhankan waaye adiga gudaha ma wada galayno oo ma gali karno of course haddaan rabna xataa gudaha inaan u galno muu gali karno waa isku dhammaatay maxaa lahaay ma aragtay waqtigii oo laga tagaya la taagan yahay laakiin waa meel aad u qurux badan oo aad dareemaysid marka gacan ku samayskii lagu sameeyey in ma aragtay wax macquul oo ahayn in ma aragtay saan camal wadankii aan ka helno oo Soomaaliya saan camal aan ka helno haddaan arkaysiin bira meeshaas taalo ninkaas funaanada madow wato oo gacmaha ma aragtay meesha oo dharka inuu iska dhaqaay loo malayo haddaad si fiican u fiirisid ninkaas meeshaas taagan oo hadda dadka ag marayaan bira ka korayso oo gacmaha u dhigooya birtaas gacanta le u dhigay biyaha ka soo baxay waa sida doosh caadiga ah camal waa lagu qoysay macnaheedu marka waxa waa biyaha meesha yaalo marka ku soo dawaalatid oo ku soo raaxaysatid waa maybe in dhanaan yihiin suurtagal oo kee u sameeyay dhanaan ahaan laakiin biyahaas asaga nadiifina waa wax عقلك بين آدمك حوجاك وين معنا مركز ساو في رسالة وحان ساو سمين معنا كاغا سيدارن مين لقى تستاهل هذا معنا دربي قاس ماشي استاجن هدا في رسيد برتي او ترتن كلو تجتمع عملوا اكتها ماشي دغ حاسا كتستاهل معنا حاجه كلا بر دغ كلا اسميين او لقى تستاهل ماشاas kalena hadana waxay u sameeyeen meel kale oo ma aragta laga sii teestayo bir caadi loo istaagay ninkaas hadda meesha oo boodiro mid waa gali ninkaas hadda booday ilmaas meesha taagan bir oo extra dhisan ay dadka ka boodaan ay ka teestayaan qofku inoo baxaa doorabana meeshaas hadaa fiirisid waxa arkay meel jaran jaran camal oo qofka hadda wiilka soo galayo oo odayga soo galayo hadana mid caadi jaran leedahay janjaradaas qofku soo daga caadi u soo gala markuu baxaayna meeshaas ka baxa amazing waxaan oo kala rabnaa macna wadanka waxaan kala rabnaa ma xumo in maxaa la ma aragto qofka uu taajir yahay oo lacagta ma aragto meel uu kala geeyeen lahayn oo tiknikooyin iyo ma aragto hub iyo geel iyo waxaas ku gado si ma aragto dagaal loo horiyo laakiin lacagtaas waxa ku fiican saa camal inay dhashaan waxaan amal quruxda badan xagga fiiri biyaha iska dhaaf biyaha ka gadaal fiiri waxa ka dambeeya dhul aad u weyn oo dad kala hadana ay buuxaan meel la aragtay teendha laga sameystay biyaha lagu cabooya wala iska baashaalooya meel hadaa fiiris geediya la tuuruhooya ma aragtay oo filimaad hindiga aan ku arki jirnay oo saxanka saan la isugu tuuraa la qabsahayo isboorti camal la isaga baashaalooya marka waa meel u fiican inuu qofka maskaxiyan xataa u dago oo maxaa lahaay stresski iyo culeyska isbuuciyadii badan haayay ee meesha kaga bixi karaan macnaha waa wax oo ma aragtay oo bin aadankan oo u baahan yahay inay waqti ku qaataan adduun waxa la yiri waa lacibun wala hawn ma lacibun wala hawn tii waxay ka dhigteen markay soo daalaan ee soo stressaan ay wax ka dhigteen in ay waqti ku qaataan maxaa la ma aragtay meeshan quruxda badan muusikada ugu daaran alaabta oo kaniisada camal ugu daaran hadda ayaga laakiin anaga kale waxa isaga daarsan karnaa ma aragtay ardiiriga aan daaran karnaa fahmi marka waa meel amazing meesha kale laga galay qaybtan kale waa laakiin still in laga soo baxo ma ogiye ma la gali karo macnaha qofka inuu ka soo baxo maahane ma gali karaa taasoo haddana wax mucjiso ah macnaha qofka markuu rabo inuu banaanka soo baxo wax celiyay ma la soo bixi karaa laakiin marka aragtay inaad gashido dhinac kale u socotid ma gali kartid askari ma taagno security ma taagno qof ma aragtay qore AK-47 wato taagan ma leh haddana qofkay rabaana soo galay qofkay rabaana ma soo galay at the same time qofkay rabaan inay celiyaan ay celihayaan qofkay inay ma aragtay baxrabana woo baxa qofkaas macnaha waa waxyaabo u baahan in laga fikiro oo maskaxdeena inay gasho oo la yiraahdo warniman yahow maxaa qaldan macnaha warsaan waa sameeysan karnaa ilaa xagga haddana baaskiilada iyo waxaas
magaalka meesha looga baxayo waay baaskiilada meesha lagu baakinta waay baakimaba leeyihiin oo ma aragtay baaskiila loogu talagal war fiiri Soomaal hadda ahaa lahayn waxa isku day lahayn meelaha ka boodi lahayn ya meeshaas kaamira hadda ku dhagan hatta meelahan oo kale ka boodo wajigayga waa la soo raadiyaa hadhow waxa leeyahay ma aragtay ninka ahaa meelahan uu ka boodo walow macquul ah saayid ila ka boodid laakiin ugu yaraan anaga isku day lahayn macna meesha maxaa la keenay hadda marka meesha qaybta waxa maana baddi waa taas wili meesha ku baashaalayeen waa iskooyinka waa kuwaas meeshan waxa waa meel ilmaha ay ku dhedheelaan meel wiifo la raaco bacaadka caadiga ah anaga aan haysana Soomaaliya meel kasta bacaadka noo ahayd iyaga waa la yihiin asal meesha lagu dhedheelay waxay ku abuureen meel bacaad ah ee dadka maxaa lahayd ma aragtay ku isticmaalaan imagine ayagoo laamiga dhisa karo horumarka haysto way bacaad ay u dhigteen bacaad waxay u dhigteen marka bini'aadanku u baahan yahay inay caradaas dhex galaan ilmaha way u baahan yihiin inay caradaas dhex galaan waa wax aad ma aragtay oo inay maskaxda isweydiisay dad horumaray lacag haysto tiknoolajiya haysto oo horumaray in maxaa lahayd ma aragtay ay meesha lagu dhedheelay ay carad ka sameystaan macna bacaad inay ka sameystaan anaga bacaadka meel kasta ku haysan ma fahmay meeshaas waxa ku yaala haddana beach folio la dheelooya meeshaas hadaa fiiris gadaashaas dambo dadku waxay dheelayaan beach folio dheelayaan waa arin aad u qurux badan wadada lagu lugeeyahay oo yaraad wili meeshaas hadaa fiiris horteena waxa arkay beach folio la dheeloy barooniga oo ma aragtay badda lagu dheelo beach folio oo aan aragtay badda lagu dheelo ee dheelayaan macna meelahan kale meesha idinku ku orday ku dhedheelo ilmahaaga soo wadahay macna ka bacdi meeshaan ay kugu dhedheelayaan adoo enjoy gareehay hadan oo noloshaada ma aragtay raaxadeeda wadato meeshaas waxa iska dhigay saligaaga soo qaada daar saligaaga iska dhigana ma baloogu talagalay waxa loogu cilaa maxay taa meel kasta ku qaadaya meel kasta ku xaara soo micnaheedu maxay taa meeshaas waa dhex saaxan kartaa min cawskaas fooligoga iska bashaalooyaan hal lacag ay dhiibayaan bas meesha ku soo galaan waa isku dhamaatay they enjoy themselves noloshooda ku raaxaysanayaan waqtigooda qaadahayaan xitaa weekend ma aha macna hadda weekend hatta ma aha waa laba saaxiibinimo hadda ku dhowdahay qoraxda horta of course meel waxay soo jirtaa meesha gudba saacido soo baxsantahay idoo saasta laba saaxiibinimo la maroy hadda meesha wax yar ka dhim laba saaxiibinimo saasay tahay haddana shaqadii waqti laga soo baxay timiko saac ka soo baxeen shanta ka soo baxeen shanta ayaga ka soo bax shanta ilaa 3 ilaa 2 saac ay baashaali karaan macna cunuga siriiska adarta meesha taagan kaligiis iska baashaalay waxa u mareena lama sano ma ka badno waalidka xagga iska fadhiisayaan meesha halis ma taalo dhibaato ma taalo qof cunuga xadaa ma jirto meel kasta kaamira ku xiran macna geeda lagu sameystay meel kasta geeda ka taagan space-ka waxay haystaa ay ku baashaalayeen ay ku raaxaysanayeen meeshan waxa qaadi kartaa umaleeyahay intaas oo kuna qofoodo ma aragtay ay deeqi kartaa macna meesha ka dambayso waa baddi aan soo arkay doomahaas u jeedi gadaashaas maraayo waa baddi aan soo arkayno waay oo aan highway-ga soo dejisay anoo highway-ga saarnaa waxaan arkay tiiga soo dejisay waxaan dhaawaa tagaale baddaas sababtoo bad lagu ma arka wadamada Yurub inta badan saasay tahay marka hadda imaado meesha biyihiina waa gaas mar labaad xagoo haddana biyo kale ku yaala badda marka ninkaas quweysaa u jeedin biyaha caadiga ku quweysooya biyaha caadiga nadiifka ah kii badda lagu quweysayna waa kii dadka dhan ay ku wada quweysahayeen oo ma aragtay kiimikada iyo wax walba ay ku daraayeen waay oo loogu talagalay in ma aragtay oo biyaha sii noolaadaan oo in badan ee sii aalaan meesha marka waxaan rabaa inaan dhaho waxay tahay highway-ga wax soo dejiyo wuxuu ahay baddaas marka inta imaado qof aan weydiiyo waxaan dhahay maxaa jiro yaa waxaan ku yiri maxaa jiro baddi waa arki la ahaa mise kale waxa dhan meesha saan camal ahayd aniga waaba soo qaldama miya macna sababta highway-ga hore ii waday kadib aan soo degay highway-ga soo degay marka waxaan qiyaastaba marka midigteeda inay ka soo baxeen wixii marka midig soo qaadahay meeshaan ay kale so qofkii aan weydiiyay wuxuu dhahay war badda wuxuu dhahay lama ogol in la galo badda lagu dabaalahay ma ahan oo waa bad jiijiitaan badan macna way ku jiijiideen marka halisteeda leedahay saas darteed lama ogol in lagu dabaasho laakiin meeshu wuxuu leeyahay carab bacaad uu leeyahay fiican way fadhiisan karaan dadka way daawo karaan maraakiibta maraysa iyo badda ma aragto iska daawo karaan laakiin meeshaana loogu talagalay dabaasha oo waxa waaye risiko oo ay xakamay karaan waa macna risiga ay xakamay karaan waa inta soo qofoodana joogto macna inta soo qofooda waqtigeeda ku qaadayso inta soo qofooda ku baashaalooso wax dhib ay qabaan
ama ma aragtay oo stress haayo ma laha macna marka waxaan rabaa inaan dadka waxaan soo duuma ah ma aragtay fantasy ama maxaa lahaay ma aragtay in maxaa lahaay ma aragtay oo magac ama kala wax ku raadiyo views may waxay tahay in aragtiin ya in aragtiin ninka goofka iskala normally konton kun 60 kun laga siiyaa goofka dhan waa inta soo boqolo oo ma aragtay guriga ku yaalo saasay tahay dagaal markii la galaayo cid kasta geelalay keenay ma aragtay ya geelalay soo xir halka geel $1 jooga macna inta soo geela la soo xir hadda inta dad la isku dagaalay hal qor AK47 wuxuu jooga ma aragtay $1 jooga waxyaabahaas oo dhan ya goofka inta 60 kun ku gadi lahayd goofka inta soo xirtid meel badan ma aragtay qurxisid meel badan cagaar ka dhigtid meel ka dhigtid meel la fadhiisto meel ka dhigtid meel la seexdo oo ma aragtay inta sali la dhigto la seexdo meel jiimbaaris ka taalo meel gambarka Soomaali iska yaalo ya kadib waaskooyinka amal la sameeyo wabi biyihiisa amal ama ma aragtay badda biyihiisa amal lagu furo meel maxaa la ma aragtay dhow laga dhigo meel dadkii ay ku dalxiis tagaan ay dadkii nolosha ma aragtay ay kula dhameystaan hadda meeshan waxaan hubaa 100% 8 bilood bal imaahay ma 8 bilood ugu yaraan mala imaahay sababtan maxay tahay 8daas bilood baraf ii qaboobay qabaan ya baraf ii qaboobay qabaan macna qoraxdana u jeedid iyada dhan waxa suurtagal hal bil inay saac amal u imaado macna saasay tahay meeshan ay qabaan nolosha meeshan ay ku sameystaan ku raaxaystaan marka baraf jiro qabow jirana qof imaahay male saasay tahay lagu dhiima marka qofka imaado $1 dib ama $100 dib lagu dhahay lacag macquul ah waxa suurtagal halka tikid hadda lagu galaa inuu $10 yaa suurtagal ah 8 bilood meeshan loo soo dhawaamay Soomaaliya laakiin 8 bilood ma aha 12 bilood Soomaaliya meeshan amal hadii laga furo 12 bilood waa loo dalxiistay karaa $10 hadaa laga qaadan $1 hataa loo dhufto laga qaado kuwaan inta meeshan waxay helayaan wax ka badan helayaan macna lacag ka badan lagu dhufo maxay u baahan tahay bas fikirkii u baahan in la fikiro in waxaan la dhaho qaabkee loo diyaariyay qaabkee waxa loo sameeyay in la dhaho dad badan waxa jira hadda oo Yurubta ka imaado oo dawladda ku jiro dad badan Yurub ka imaado oo wadanka caadi u soo dego soo noqday waxa la rabaa dadkaas inay fikir iyo wax soo kordhin ee lahaadaan ummadda ee wax soo kordhiyaan muhiim imagine waxa la sameeyay meel baaskiilada ay parking u gishtaan macna dhanka kala banaankana waxa yaalo qaybta oo maxaa la ma aragto oo baabuurta ay digahayeen meeshan baabuurba soo gali karo horadaas ay ku qoran tahay hadda amaan hadaa la fiiriyo oo aan kuma mashquulo meel baabuurba soo gali kara hadda meesha ugu dambaysa tagno qasab waxa ku qoran inaan soo gali karin maxaa la ma aragto qof oo baabuur wata meesha calaamadaas meesha ku yaala waa la hubaa wiliga meesha ma imaan waa huwa markay wadadan ay dhamaato oo dheer wadadan dheer haday dhamaato dhamaadka meesha ugu dambaysa aan ka soo galay qasab waa boora laga helaa oo dhahayo may gali karo mafaami marka waxa aan rabo inay Soomaalida barato ya oo ummadan ay bartaan aan waxay tahay war waxaan hadii laga fikiro waa la sameey karaa waa aad u sahlantahay hadda waxaan idin tusaa meeshan waxa ka furan maqaayad oo maxaa la ma aragtay wajigeeda fiirihayso maxaa la ma aragtay meesha hadda oo aan idin tusaay wajigooda xagga u jeeda dadka inta fadhiistaan fiirista karaan macna albaabka la galay waa kaas albaabka kaliya bas maroodiyaasha yaalo ya labada marood albaabka la galay jarada iyo xagga qaabka loo dhis iyo meesha shimbiraha galaan iyo cagaarka loo sameeyay ma aragtay intaas oo lagu daro maxaa la albaabkaas laga dhigo waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo meel qurxi kara macna waxaan laga cuno waxay tahay inta badan malaay iyo waxyaabaha ma aragtay badda loogu talagalay qofku wuxuu dareemaa inuu bad joogo ama anaga waa qabnaa ya beach view iyo waxaan qabnaa ma aragtay aan qabnaa barnaamij kuwaas aan qabnaa oo badaha ka agdhow oo malaay iyo waxaas lagu sameeyo cunto lagu sameeyo so waxaan rabaa inaad fahantiina waxay tahay waxaan oo dhan waa la sameey karaa wax weyn ma dhul naguma yar dhulka hadda wadankaas aan dhul dhisan iyo Soomaaliya weyn macna waa ka dhul weyn
ساسيتا أنا دول أسكت دجال ونقول لك على تدفونا وكلا بوبونا معنا ما أنت هدي لا أرك خوف كان كحوة لا أرك خوف كان دول كبوة لا أرك خوف كان وما أرك دول كان أسكت هستان معناه محاول ماشي دول أنا كجر وطن كان تكي ما أنا أو ما أرك هولن قاعد أي دهان وطن آد ويروى وحلاقي على مقالة مقدشة إنك وين تمن وطن كدن وايا إنك مقالة مقدشة وين تأثر تقال إذا صاصته هذا وحاجره دول أنا كجرت أو بحسن معنا قريها ده أركي أو 10 سنة وايا قريه سووا بس معنا إنه هلان وهاي الأيين قريه وقالي وحيابي دم وقالي إذا صاصته قري الآن هاي سمعنا قري الآن إذا هاي سلام أركيس ضد قري سودي له أركيس ضد قري أو كلا أركيس دولة أنت ما دام أركت قريان دولة أسكال هاجي تكاد ده يسمعها أما كان ده يسمع قريان ها دولة مالها كان محل ما أركت مال غربوش قطالها نسي ما جرت معنا وعاصر ساسي تاني لك بحوا ما أركت عادي ودولتي مالك السبحي كدوران برلمان كورلو أنا جرتوي قري أنا جروي برسان وايوي مالك السبوغان دجالمان مركا وحارة إنه فهمتين أو أبرتين سومالية نلاش خاب وحنا أصعد ماشي لواي أنت أنا أصعده مركا وحارة إنه برتين ورنلاش والله نولا كراسي هادو نوشين سكة قيمة بدن وكقالي سنة ما أركت نيل سابق كرين وسنكاس أكل ليسين وأنو لا كرتيم هذه حتى سنك لقى تابانين دولة ده سنك لقى تابها منه يا هذا سنك لقى تابانو أنت نين عدان غوري يسوع جراعو دودك سوسي ما أركت هذا سنك قبضين منه إذا أساسي أجيت موتها إن لازم جميس قف غوري جيز إلا وتجاهد موت حتى ما أباهنا هل كاجو هو جام بس هي أدي ستين مقليسين أمل معركة اللفا لا يقوى منه يسجل الحكومة يسجل إذا كان حكومة هل مليون قفط يا أنت حكومة هل مليون قفط وحكود عند محاي هل قفط أنا حكوم جد وأو بوتيز هذيك يفهم لك يعيق معركة العقد هيستي وحدا هل مرة عرب كلية فينا وركنا مقالة ديكر مفهمي سو حربا إنا أسكوي مادين فهمتين نلاشان وجالي كرتين معنا وحوين ما هذا وسهل أنت إنا نلاشان قسينا لام يرى أنت لقى السي يا وحوا ما أردت 6 متر وأولامي 6 متر بس وصانع صان دركيس وأديري أوف كورس عوصا أنت لقى السي عندنا قرية حق سكويال قداش حسنا بدي إيميش القرية حسايوان واللي ببط أو بحس سمستين أو مع قعنكو سمستين بعرف مثال الله باشان ماشي أنا مش قدم بيسوا أو جنجل كو أكيد أو حوا أكيد دورك كبعدين لامي قال إماها سو حال روا إن دمرك فهمتين وروحان سان أسهل واسمع ذكرنا نلاشان وجالي كرنا معنا نفهمه ما دام نلاشان جالي كرنا وإنه وحقها وح أو أنا قدن أنا ما أركتي واسمع كرنا أدو سهل هذا وحاجة توصل بارك يدي شيء جاي أيضا توصل بارك إسلام مركب وحكسه بحوا يا ورتنا let's jacket ماشي هذا يدوس هواء إلا هذا درك هذا حق سيجر باركا واكا مركي لو تصو عنق قعنت اسكايستي باسكيل اهلاس لو اوغليا waa macnaheed ka badan ma loo ogolo macnaheed baabuur ma gali karo mootooyinka caadi weynka ma gali karaa bajaaj ma gali karto waxaasna ma gali kara meeshaan ku eegin yahay baabuur meeshaan ugu dambeeyo geedaha xataa waa lagu gali karaa meel iska yaalan marka waa ka soo dhamaanay hadartaan shaqadayda isaga naqaha meeshaan waxaan rajaynayaa mar soo noqdo adreeska iyo waxaan qoraa dar and then waa loo soo naqaa meeshaas waxaa loo diyaariyay bas baakin bas baawarta dhan dhigtay bas loo diyaariyay all of them meeshaasna baawarta wada yaala macna weligaa ma arkaysid macna yaa meel waxaa loo diyaariyay bas oo la galo oo laga bixay leedahay bas baawarta loo diyaariyay bas inay dhigtaan intaasoo baawura taala macna marka xisaabta ka dambayso markaan fiirino macna xisaabta ka dambaysa waxa tahay meesha meel dalxiis waa oo dadka inay ku dalxiisaan loogu talagal sax okay logic yar ka dambeeyo macna waxa raba inaa fahantiin wax kasta waxa waay wax yar oo fikriga ka dambeeyo
وحيرو فكرة دوك دم بمرك بعنان معتا وزعلان تأنا سميسي مرك هذا سو ماشي عند هذا إسكو ما هاي أو حلو تلقى إن محل لا معرفة لو ده الحيسو أو لو باشال لو تلقى معنا سو وحلو جي مرك تذكر إنه وحكوا ما هاي معه باور ما هو ده باور كوي ما هاي ده باسكيل كوي ما هاي ده ترين صورة على صور لوجه هاي سو هدي ده هو dadka meesha ima haayo anaga wax ma nooga galin meesha waxay noqon marka businesski aad inaad samaysatid ama wixii aad inaad samaysatid iyaga lacagta ka rabtaa macna saasay tahay hadana meesha hadda lacag laan waay normally oo parking la dhigay laakiin normal meel waxa jiro saaca ma leh $1 waa saacad ama kala $10 waa maalinta dhan qofku markuu imaado $10 iska dhiibaa macna meesha waxa taala kun iyo ma aragtay kun baawar iska taala iska dheh kunka baawar waxa la ku dhafaa $1 haysataa macna waa business kale oo marag si abuuray saasay tahay laakiin qofka markuu sameeyahay meesha waa inuu ku fikiraa dadka imaahayo wuxuu u baahan yahay meel baawar ku baakimaan is logic waa macna aqliga bini aadamka saliimka ah wuxuu sheegaa intaas uu sheegaa soo dhula meeshan ka banaan waxa dheer tusaalahan warniyo aan ka dhis dabaq maya dabaq lacagta ka soo galay daily lacagta ka soo galay daily ga kuuran in maalin kasta lacag ka soo gasho kuuran hada maalin kasta $1 ka soo gasho dhul banaanay oo baarkin leh gasho $1 ka soo gasho iyo bishii markay dhamaato ma aragtay waxa sug $600 ama $1 sug $1 qaadey oo maalin leh marka dadka baaskiilku imaahayeen sidoo kale baaskiilka qofku markuu imaado baaskiilka hadda wadada iska dhigto dhaxyaac waxa imaahay maxay baaskiilka xataa in la xado macna laakiin waxa sameeyay meel lagu baakiyo baarkiga oo madax loo geliyo marka madax u gelisidna silsilado wata qof walba silsilada meeshii birtii meeshii loo sameeyo parking yar oo lugta galay madaxa iyo waxa la isku qabaa baaskiilka soo qofka baaskiilka looga xaday hadhow markuu imaado baaskiilkiisa meesha u yaala waa arrin kale oo ma aragtay fikir yar u baahan bas in lagu daro iyadan maxaa kale oo ma aragtay meesha kamid ah meesha dad badan isku imaaha okay haddii la dhaho baabuurta baaskiilada iyo dadka la isku fasax haddii la dhaho niman waalna jiro oo baabuurta ayagu cabsan inta soo wadaan oo dadkii baabuurta dadarsiihay macna logic markii laga fikiro amni ahaan iyo risk in la qaato waxa ka wanaagsan in la dhaho baabuur ma aha wixii baabuur ku imaad meeshan wada istaaga balorteedii inta ku egtiin lug iyo baaskiil qof hadoo ku dhaca ma ka dhibay ma baaskiil qof waxa la yiri markiis la gala meeshan idin lugtii islamitiin macna dad lugaya islamitiin adoo baaskiilku ugu dhacna xabba way kugu dhicmaa baabuurka ma aragta ka dar iyadana waa arin aad u sahlan oo hadii la fadhiisto laga fikiro maxay jawaabteedu ku soo baxay ina ma aragta u baahan tahay maxaa kala meesha u baahan kartaa kumanaan qof wada imaahay ya waxay imaahayan iska dhama aragta 6 saac duhurnimo imaahay ama ka 9 saac imaahay ama 3 galabnimo ilaa waxay joogaan 2 saac habeenimo waxa way ma aragtay 5 saacadood 7 saacadood waa qofka 7 saac markuu joogo muxuu u baahan biyo u baahan waxa cuno u baahan dabcan iyadana waa business kale meesha inuu soo daray tabaarti oo baasha wax u noqoto mid oo laba isticmaali karo maxaa kale oo soo galay macnaada ya waxa kale ugu muhiimsan oo soo galay cuntada iyo parking-ka iyo waxyaabo dhan ka darna jira macna waa ina qofka mas'uul oo helaa macna qofkii mas'uul waa emergency waxa ma aragto dhag alla ka socdo oo celis lahayn macna la celi kari marka inta arki leed meel kasta inuu qof la istaagsan yahay wixiisa waxa ka aqraa ina mas'uul fiican oo quruxsan oo ma aragto nidaamsan oo ma aragto gabdhii wiil kale ina meesha ugu diyaar sababta hada gabdhii wiil hal meel isla gelis xataa waxa suurtagal gabdhii la fooday ma aragto oo la farxumo waxa soo dhan marka waxa la rabaa in isla markii idee ee tale ah inay kugu dhaataan raba marka aragti ina wax sameeyso waxa saaw camal anaga fikirka saac camal ma bahayna macna kadib waxaan sameeyay iska daab kii saac camal xataa ma hayna inaan saac camal inta wax u sameeysano oo aku baashaan ka tagbo ina anaga biyo dhisno biyo sameeyno waxaan bahaysanaaba badda ugu weyn Afrika dhan haysanaa macna tiyan intaan saac camal u nadaamilaan macna badda ilaahay meesha dhigay oo la isaga baashaalay saac oo nadaamilaan badayno kale maxaa laga sameyn karaa waxa laga sameyn karaa sida siyaad barbar u sameeyay la dhihi jiray inay runta inay beenta ma aqaan ku soo gaarin waxa la yiri badda dadan yaxaas ku laa jiray badda Soomaalida hadda ma aragta aan ku dawaalano soo yaxaasan dadki nafta ka qaadariyo waa imaaha xataa xeebta ma mar imaahay dadka cuni jiray kadib wuxuu sameeyay shabaq adag oo ma aragta aad u adag oo laga soo gudbi karno oo ilaa xeeb labaadka camal uu geeyay la yiri meeshii dhan uu ku xiraba meesha dadku dawaalaan uu ku xiraa ilaa hadda ma aaleysade wixii waa halaabayaan wixii waa ma aragta mutuqayaan wixii ma aragta tabarta ka dhamaahay waa go'ayaan yaxaas ka dartaan waxa suurtagal ah iyo dadka inay isla dabaalooyaan suurtagal ah laakiin maxaa sameyn karaa ina geedkaas camal meesha lagu xiro wala sameyn karaa ko xeeb labaad oo kale mar qarkiis waxa la yiri luga lagu tay karaa
إلا حبلات قداشة هدي ساس لقى بيسو وحوا بيرفكت وحكى حتى اسكناف ماشي هلا سمي كرا دربيه لا سمي كرا ملا دربيga hadda ku xiran liida qofka tagtaa taqaano oo dhanka marka Turkiga aadaysid meel aan la kori jiraa jirto ka tiisay jir darbiyadaas oo kale camal waxa laga dhisi karaa xeeb labaad gadaasheeda marka laga dhiso waxyaabihii dhan oo ma aragtay meeshan ku jiray dabka dabcan wixii halisa waa laga soo dhaafbaxsaa waa laga soo bixiyaa wixii kalena ma aragtay waxa loo dhaafaa dabaaq maxaa la sameyn karaa waxa la sameyn karaa doomo waxa jira oo madaafiyo badax oo qashin ka saaro oo sunta ka saaro oo baalada ka saaro waxa soo dhan walow badda awood ay u leedahay inay sunta disho laakiin how long we don't know macna marka in badda saas loo nadiifiyo badda marka la nadiifiyo quruxsanto amnina ay tahay inuu qofka qaadayni macna haday qaada xataa darbigaas aggeysayso xeeb labaadka ee macna oo isla markii laga dabatay karo la soo qaban karo macna maxaa kale soo haray in meesha Elliot iyo hoteelada laga sameeyay in waxa laga sameeyay meel oo ma aragtay green ah oo ma aragtay oo wada cagaar ah oo banaan oo dadka fadhiistaan oo badda saas ugu daawadaan xataa badda haday soo buuxsantay ma aragtay ilaa darbiga ay imaado inay iyaga darbiga gadaashiisa meeshaas wili ka daawadaan oo meesha ugu dhow ee biyaha ku dhacayaan inaa shabaqi meesha godgod laga sameeyo oo biyaha markay meeshaas ku daataan isla markaa badda ku celiyo xataa dadka ay fadhiisan karaan meeshaas oo biyaha fash soo dhaw inuu qofka ku qubaysan karo waa wax qurux badan waa laamiga markaas meeshaas laga sameeyo laamigaas laga dhigo laamiga hadda already meesha ku yaalo laga dhigo meesha dadka kaliya ku lugayaan haddana maxaa ka dambeeyo tabakaayooyinka meeshaas ka jira gadaal in dhismihii laga sameeyo marka hoteelada oo qofka ma aragtay dalxiis u imaad meesha la iska dago soo lugeeyo badda saan u soo gala macna wixii ka dambeeyo ka bacdi la sii qurxiyo ma fahmi waa talo oo aad u sahlan oo aad u yar waa macna dada waxay ku leeyihiin marka yaa lacag gelihayo inta lacag laga keenaa yaa war qofka dhulka qofa iskala koo laba amniga dawladda iskala saddex dhaxaalinta dawladda iskala mina dadka la dhaxaalin karo ma maxaa marka la heli aal raadiha waxa raadiha bas ninka Elliot heesto kale oo lacag ilaahay ma aragtay oo Elliot kiisa in ninka dhulka iskala way wadiishiyayaan halkaas meel ka dhigaan sheer ay kala qaadahayaan dawladda meesheeda ka amacaashay fahmay waxa suurtagal ah qof lacag haysta adduunka in la raadiyo oo Soomaali la dhaho war fiir soo dhawaha dhula meeshan ku hayna in la invest gareeyal raba boqolkiiba boqol markii loo kala dhigo qayb dhulka iskala ninka iskala qayb waxa iskala dawladda ma aragto oo waxa isku xireyso amniga ma aragto sugayso oo haddana dadkan kala dhexaadiyayso oo qof walba laankiis ku hayso qaybna adaa qaadahay macna malas dhibin qofkan taajirka lacagtiisa bangiga isaga jirta waxay ku sameeyay mal laakiin aan hada u tago dhowniyo haya kan 1 milyan ma keenay macna 1 milyan sababta aan mi aaminayo lacagta ma ka cuna ma ku booda walaal aaminina jira macna laakiin markay dawlad soo dhaxgasho waxaan la nidaamiyo waa fikir fiican waa macna inay dawlad soo baxdo war xitaa mu baahan xataa ina meel kale ka jiriso war qabiilkaaga xataa raadi macna odaygaaga u tagi oo nabadoonkaaga u tagi nin wasiira tahay nabadoonkaaga u tagi waxa la nin nabadoon soo dhawaha waxa rabaa nin adeerkay oo lacag haystaan raba waxaan ka damaanad qaadaa in lacagtiis la dhicin waxaan ka damaanad qaadaa in ma aragtay la isla wareejinin oo xaqiisana ma aragtay oo helo waxaan rabaa meel heblaay in la dhisaan rabaa qofka meesha iskala dhulka iskala hay wax la'aan hayso ama ma aragtay ma haysto awood inuu waxaan dhan oo dhiso soo aan ma aragtay meeshan ka wada mushaaxano qof walba marka wuxuu iska qaadaa ma aragtay percentagekiisu qaadaa wax lees dhibana ma leh wax adagna ma leh in adeerka ha lahaado in adeerkay ha lahaado meeshii waa noo qurux badnaahay macna wax weyn ma marka halaasan ku soo gabagabeeyaa